السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له مسلمين تاهو وحان إذن لو ذاقيا قصة آدي قلبي أو تابتي قصة داسو إن بدن أي تابن دونتو ولا لهي هدي أي سسي عنو دغيستان معنى هيدون أي فهمان وحي كفريسو قصة دان وحي دحمريسا معلن يؤردقيسا معلن كان وحالي لهذا شقيق البلقي ardaygan waxaa la yidhaahdaa xaatimul asami waxayna ka mid ahaayeen culimmada hore ayay ka mid ahaayeen macallinkii iyo ardayga ayaa maalin maalmaha ka mida soo wada fadhiistay macallinka ayaa wuxuu su'aalay ardaygiisa wuxuuna ku yidhi ardaygaygii meeqa sano ayaad ila joogtaa ardaygii ayaa wuxuu yidhi macallin waxaan kula joogaa 33 sano macallinkii ayaa ardaygii ku yidhi ardaygiigiioo 33 sano maxaad iga faa'iiday ama aad iga baratay ardaygii ayaa wuxuu ku jawaabay waxaan kaa faa'iiday ama aan kaa bartay 8 arrimood macallinkii ayaa yaabay oo ku yidhi ma 33 sano oo dhan ayaad iga faa'iiday ama aad iga baratay 8 arrimood oo keliya ardaygii ayaa ku yidhi haa macallin 8 arrimood bis ayaan kaa faa'iiday ama aan kaa bartay 8 arrimood bal walaashay ama walaalkaygiiow 8 arrimood bal u dhagraarici oo ka faa'iiday xaatimul asami arrinta koowaad wuxuu leeyahay arrinta koowaad midda koowaad ama qodobka koowaad waxaan fiiriya dadka oo dhan ibni aadanka oo dhan ayaan fiiriya qof walba wax ayuu jecel yahay laakiin waxa uu jecel yahay waa maal iyo owlaad ha noqoto wuu ka tegayaa maalkaas iyo owlaadda iyo adduunyada wuu ka tegayaa markaas ayaan waxaan go'aansada ayuu leeyahay inaan jeclaado acmaasha tan ugu wanaagsan inaan jeclaado si markii aan geeriyoodo ee horay igu raacdo qabrigayga tan labaad hadalka allah subxaanahu watacaala ayaan soo xasuustay ama aan fiiriyay ayuu leeyahay xaatimul asami وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وإن الجنة هي المأوى qofkii ka cabsooda la kulanka rabbigii ka reeba naftiisana hawo iyo shahwaad ka reeba fa ina aljannata hiya alma'wa janno ayaa ahaata ma'wadkiisa markaas ayaan waxaan go'aansada ayuu leeyahay nafteeda inaan la dagaalo aan ka reebo hawada iyo waxyaabaha xun inaan ka reebo si uu ma'wadkayga u noqdo janno tan saddexaad dadka oo dhan ayaan fiiriya ayuu leeyahay markaas ayaan waxaan arkay qof walba inuu wax aad u qiimeeyo wax ayuu aad u qiimeynayaa markaas ayaan waxaan soo xasuusta allah subxaanahu watacaala aayaddiisa qur'aanka maa cindakum yanfadu wamaa cinda allahi baaq wixii agtiina ahaada way dhammaanayaan laakiin waxa allah subxaanahu watacaala agtiisa ahaaday ma dhammaanayaan waa baaq markaas ayaan waxaan go'aansada ayuu leeyahay wax walba allah subxaanahu watacaala xaggiisa inaan u baxsado ayaan go'aansada ayuu leeyahay qodobka afaraad dadka oo dhan ayaan fiiriyey qof wuxuu ku faanayaa nasabkiisa qof wuxuu ku faanayaa maalkiisa qofba wax ayuu ku faanayaa ayuu leeyahay markaas ayaan waxaan soo xasuustay allah subxaanahu watacaala aayaddiisa qur'aanka kariimka aayadda qur'aanka kariimka bilowdaya yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله سبحانه وتعالى محسير عسي إن أكرمكم عند الله أتقاكم midkiin waxaa ugu karaamo badan alla agtii kan taqiga markaas ayaa waxaan go'aansaday inaan naftayda
isku qurxiyo taqwada Allah subxaanahu watacaala. dadka oo dhan ayaan fiiriyey ayuu leeyahay, waxaan arkay qof walba qof inuu xamdayo xaasidnimo ku jirto. markaas ayaan waxaan soo xasuusta aayadii Allah subxaanahu watacaala, naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati اddunyaa, annaga ayaan goynay dhexdooda maciishadooda adduunyadan dhexdeeda. markaas waxaan raali ku noqda ayuu leeyahay xaatimul asami, Allah subxaanahu watacaala wuxuu iigu gooyey. tan lixaad tan shanaad waa soo sheegnay. tan lixaad, dadka oo dhan ayaan fiiriyey, cadow ayay isku yihiin ayuu leeyahay. markaas ayaan waxaan soo xasuustay Allah subxaanahu watacaala aayadiisa qur'aanka kariimka ee, ina ashaydaana lakum caduwun fattakiduuhu caduwa, shaydaan cadow ayuu idinku yahay, cadow ka samaysta. fattakiduuhu caduwa, cadow ka samaysta ilma aadamow. markaas ayaan waxaan go'aansaday shaydaan inaan cadow ka dhigto, qof kale aan cadow ka yeelan. tan toddobaad, dadka oo dhan ayaan fiiriyay ayuu leeyahay, waxaan arkay qof walba inuu oo isku mashquulinayo amba uu isku dulaynayo irsaaq raadis iyo adduunyo. markaas ayaan soo xasuustay aayadii Allah subxaanahu watacaala, wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa. allahu akbar. daabad ma ahaanin amba wax tukuba dhulkan ilaa cala allahi risquhaa, risaqeeda Allah subxaanahu watacaala ayaa kafaalo qaaday. markaas ayaan waxaan go'aansaday inaan aakhiro u shaqaysto. qodobka sideedaad, dadka oo dhan ayaan fiiriyay ayuu leeyahay, waxaan arkay qof walba inuu tala saaranayo qof walba inuu qof tala saaranayo. markaas ayaan soo xasuustay aayadii Allah subxaanahu watacaala, waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh, qofkii Allah subxaanahu watacaala tala saarta asiga ayaa ku filan. markaas ayaan waxaan go'aansaday Allah subxaanahu watacaala inaan taladayda u dhiibto. markaas ayaan go'aansaday ayuu leeyahay Allah subxaanahu watacaala taladayda inaan u dhiibto. walaalkay muslimka ahow, walaashay muslimada ahay, 8 arrimood wax ka mida ma lagaa helaa mise waxba lagaama helo? bal qalbigaaga la tasho oo adiga isweydii. waxaana rajayn doonaa walaal walbuu dhagaystaa inuu ku dhaqmi doono siduu ugu dhaqmayey 8 arrimood uu macalinkiisa uu ka bartay xaatimul asami. جزاكم الله خير. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.